لكن فارغول لورنجري تخرجون لورنجري درجرين لورنجري حسن عون لورنجري ورجع آخرتشري عبد الدكتور لورنجري عبد الله يقول عشان لورنجري حاشنا بورا وكلات اللهم المستعان من مرسح محمد هلاق لورنجري وحويان سنفر لا هنجري شيخ نور لورنجري ما أنا كأنو عند ما صاحبك أصلا لدري توقف فنان ميل مرودريب لي لها واحد اللي يور ضوحي هنجرتي بيجوا اللي بدأ الدقود بيهين halka uu ka balaaray marka waa laga talaabi karaa laakiin meel goodi waraari uu ka soo go'ay yaa jirtay ku yar oo deegaanka ah oo toga yaqaanay yaa la halka waraarka ciidanka intaad ka leexisay adigu indho hore noqo isaga indho hore ah wiilka hor socda iyo ciidanka yar kala go'ay labada wiil gacanta iyo say soo haysteen tamaan soo dhaw وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته وانا واي ولا أحمد واي تمام انتينا برنامجكينا guda galin waxaad kamid ahayd naftooriyaasha qaadka siday ee jawada dalka qalinta ogaadaya tamaan waa kuma ma jiraas magacaan tamaan ahayn oo looga yaqaanay halgaadiis waxa la yaqaan walaale tamaan baa la yaqaanay laakiin waxa la igu dari jiray tamaan dheere markii aad adigu ciidan ku soo beereysay ama aad qoriga qaadaysay ma xasuusataa dadaad intii ahayd ama inta jirtay xilligan ururkoona ku beeray ayaan xusuusnahay waxaan ku beeray 2007 waxaan la ahaa kaada ahaan 16 jir bana 16 sano waay 16 sano jir 16 sano oo sheegtay ma xasuustaa meesha ka raacday waan xasuustaa waay waxaan ka raacay meel baadiye ah oo degmada dhagaxmadow ka tirsan oo galmudug la yiraahdo galmudug waay tanow intii aad ka mid ka ahayd shahaada wana leh bal hal iyo laba hadaad xasuustaada aad dib celiso ma jiraan maalmo adiga gaar ahaantaada aad oran lahayd taariikh lama ilaawaana iyo qisooyin cajiib ah oo aan hilmaami karin bay ileeyihiin waan mahadsantahay walaalle aad iyo aad maalin bay ka darayd laakiin markii aan xusuusto inay xusuustay dib celiyo marxaladu way kala gadisnaayeen kuwa adin lafahaaga macnaha marxaladii kuwa adkeed bay noqon kartaa mid saaxiibada oo aad jeclayto ku adkeed bay noqon kartaa midna tun nafsadaada nololeed ku adkeed bay noqon kartaa marka haddii aan kala qaado afar marxaladood baa igu adkeyd afarta marxaladood markaan kugu sheego adiguna de kolba waad ka fahmi kartaa midkii ka adkeyd laakiin ani afar sukay cishada yaa igu dareed dagaal maalintii ugu horeysay ee ay xabada kugu soo dhacdo ma xasuustaa way jirtaa aad baan xusuusnahay maalin xabada igu soo riday maalintii igu horeysay horta ni aadkeeda baa anu rafaadka ama daalka ama oonka ama gaajada ruuxu adagoo qalabsan baan ahaan jiray laakiin waxaan u nuglaan jiray anu xagga dhaxanta iyo qabowga iyo roobka halkaa qodob baa igu daraa haddii laakiin anugu horeeyo xabadii igu horeysay maalinkan ururka soo raacay maalinkan la socday 3 cisho yaa meel agtayada oo nagu dhow qorin ana wadan yaa waxay ka bilaabatay 3 wiil oo meel joogay qolo military ku helay ama ciidanka wayaanaha ay isliin jiray yaa ku helay xabadii baa qaraxday anoo waqtiga mid aan saaxiibana intuu Carabi ii diray inuu meel aan ciidanka uga soo iibiyo wax uu rabay oo weli dharka Carabiga xidhan xabad qaraxday agtay xabad ku qaraxday waan u gurmanay qoladii waan ku yaacnay qolo yaro military aad u cabsoonayso laba wiil la dishay wiil eriyanaysaan ka reebay cishada markii saal xabadii loo saaray ee laga haray anuguna waanu yarayn ciidan yar baan u ahay xabadii markii saa ay qoladan u saareen ee nafturi laga reebay iyo qoladii jabadda waxay dagaalamaysaa ay baxday anigoo kaliya oo maalinka xabad igu horeysay ahayd ruuxuna aad markuu hor leeyahay xabadda ugu jecel yahay waan xiliyadii dambe aan la qabsay in badan dhaawacmay waxaan ka calool adkaa maalinkii igu horeysay anigoo waran la abaan axmaaradii dhex booday bartankan ugu dhex jiraan arkay ciidanka intuu laayay axmaaradii dib u baxay oo kaliya meeshii joogo qorin aan haysan markii dambe axmaaradii anoo kaliya aragtay ee aad ii xabadaysan aniguna anoo dayaanya allah anoo ma garanaysan qorin aan wadan yaan ciidanka ku gaaray kuwan saaxiibanahay adigu xanaaqay kiiba ay kaxiyay ciidan in eriyatamin noo soo tagal marka iyagu ciidanka militariga ee Itoobiyaanka u badnaa anaguna waanu yarayn wiilashaasaan soo gurmanay laba wiil nagu hordeen midna waanu ka reebnay xabad qaraxa taas ay ahayd laakiin mid aan ceel baxmeen ahayno maadaama waran la ahaa ciidankina ay taadka ku dagaalamayeen markay saareen ay dhowr ka deen ay baxeen ku dhufo ka dhaqaaqaan ma la haysan
bahasha waxa weyn keeda jabada ku guranaysan ma isla marka ani xabad maalinkaas ay igu rislaan maalin ceel baxmeen aan cadaysan ma baxay marka waxyaabaha kale laga yimaado iyo rafaadka kale waxaa jiray dabcan maalmo laga yaabo inaad gaar u xasuusato kuugu oon iyo gaajo badnaa maalmahaas maxaad ka xasuusataa iyaga xagga gaajada niyo gaajada Axmedow saan horeba kugu sheegay anoo dadka aad ugu qalabsan maana gaajadii oo ku mid meena kari jir xilliga aan joogno sufur biyo kala barkii aanu ma cabo biyaha iskuma fiicin laakiin maalinkay gaajo shishkayga damaqdo waxaa jirtay anoo xilli taariikhdu inay ahayd 2011 ana kamid ahaa ciidanka 2012 ma ana kamid ahaa saraakiisha ciidanka yaa dagaal baan qorsheynay dagaalkii noo qorsheysnaa ka hor iyo qolo aanu balansaneyn oo horin kala ahayd bay dagaal qabsaday أنا عندنا كواحد يقول كأكل أنا سوي ياري وير كلا أو تريه كواح أنا مركز تريه ونقبنا ونلتشو لما وير أسكول أصلا صاحب هذا يعني أنا حاليا أعرف وبوير كنا حكومة يدق إنه فيل وحلي هذا أنا قاعد هذا سواق عتمان كأيوه برني هبين كهرب بلا من مركز سوي بحيه هبين نمت كمان ما أنا عشان هبين كمان عشان أرورتنا من قرعان توركي أنا قضية دفع نص عنده يعني تلفون نقول صاحب حبض أنه كنت شراب من تريه إنه صاحبه أهي يعني نقول حسن أبسم الله حسن أروح مع ديره حلي جدك دبانو فايلي بيجي دبك نص روانو طادني وأنا ضمني إذا ما كان ديارني أنا قريب كم وقتنا الاستاجي أنا نقول كتريه كوحة برا سيدين صدق ساعة أو بورا أنا مش أصلا هنا حبض دي أضرب ياقة هالكله قدام بيان وكو قارن وقرادي عدو وين الأريا دي يلوش دعوة عمان سواق عني صدق ويل بأنا هالكي يعني رجيت لي صد لويل بالك رجيت لي صدق دعوة عنه وأنا سواق عنه دعوة عن درنا إسلامانك عملنا كرسن دعوة إبنين هذا بيجي تمنكي هبي مركب يعني دعوة إيه كحين دعوة إبن ودنا والتريورين كبسي تقول مال أنت نوجد دياري أنت كفتي عشرة نوجد دياري أنا قرأ مريقنا ونرى صاحبي ميلا ما سيس عنا مني ميلا ده عشرة لو صنعان كرماه كبود بان كسي بونو سيمان وسعن مالن كي هبين كي بان سيدا دنا بالعشرة كواهن وهبين كي لبعض مقرنيس يعني بالعشرة كواهن هبين مالن نمتك يعني يرشان يرو قلا كرسن نبى كامله هذا إسلام أنا يكوي رجل صاحب كيودني والله بس يودني وداوعة لو تكشف عبد الرحمن ولي ده أنا أسقي يا ماري كل ما نون يرسح أنت أنو تشوفيني من نوقع أنت دي يرد لك الصدية شاهينة فرق إنك مرة سهل كي قالوا مثلا اللي أنا قلاهد سهل كي قالوا نمية واحد مرة هيد يعني صعب كأي كان مع العربي اللي هو فيرني يسد حدي وينا والنميت كمان ونفح كي حوق بالنبي كان أنا ويا هذا ناس يقعد أنا واحد من مالك قصة حيد بيجودن بيسي نفقانه لما يعني هنمركها لكن أيضا كم يركر الجدس المدام ممكن بربع منطقة يجيبتني وما أنا تشوفين مالك هنا سيدي بنكو سعن مالك أنت كارثة مال المدي سيدي بنكو سعن فيد كي صدحت يا تنبي يعني ميلدي شاير ما مالك كرسني كوب شهن عبي مكاسن ديدي بايقة صداتين وحرارة بحها ينو قاچها هذا قرنين أنا كان واي قاچة ورطة تشكيك الدماغ ما أنا نمت كده بهبين كان مالك كده بيسانو يعني قدر كرسنت شقادي ولي بهبين كان كمان بوسط أنا لا أنا موجود وعيدنا كحال السكر بدري تشري أفريا لا تنصح من روح مدبر شقادي هني حلي جيس اللي جاب بدري يعني مالك هالرياشين في عن أنا كهالي أدو قضية شافي عما نكرسنا ما أنا نمت كده أنا مركز قاعدة تشكيك الدماغ oo inuu gubto maankii ugu daray shirugaadan mooyeen taan hawshaad ka duurka ku jiray maalinkaas ahayd shaqada gacay ugu badnayd aanan halaba habeen iyo laba maalmood aan waxba dhadhamin oo aan dhamo oo arabku intii ingagajidin ku ilaami waayo maalinkii ugu darayna meel ilaahan dagaal kulul ka galay sanadka gudihiisii had shantii galnay waxba bilaabatay maqribkii baan isku gaarnay 8 baan naga shiiday تومي رأوا أنا ما قان أنا مركها نصيب ما أنا دعوا عقران هنيك كأدور رفعه قربة كم عودي ونكى كواحد أقول بردوار يعني بردوار كقاضي السنة دعوا يكون بدمي كمان بوستان هاي عينك يعني سكوه بيني
qoriga bardooyinka مثلا laftigiisii qoriga beelkaygiina waan watay oo 9 xabay igu jirto iyo 2 midho bani qorigana 150 midho rasaas yaa ku jirtay laakiin waa iska easy markii aan wadaan ruux saaxiibka aad ku weyn ma habeenkii marka ma wax biyo arag maalinimadkii hore xabadda nagu qarxi doontana baashan galeyda leeyahay ama qarmacda yaanu ku qadayn anoo qadadii afka ku hayeen biyo ka dab cabdi maxbad u qarx qoladii xabadda hor qarxisana waan aha gabagabadii u dambeysay qoladii ku gaadhina waan aha aadkiisa mana dagaalkiisa heerkiisa badanba oo wax aan badan oo kulul maalinimadkii barqankii dambe yaa anoo qolo jidgooyo soo hadha baan ahay dhaawicina waa la guray hal wiilho maxamuud timcad doonto halka ku shiideen gudun baan qabrigiisa ku qonda waan u aas marka kooxdeedii baa lagu xidhay dhinacii ay ka soo socotay bahashu turaya aanu ka qaadanayna ay koon aanu ka qaadanayna waanu haysanoo waanu ka dhageysanayna iyaga halkay soo marayaan ciidanku waxa ku soo socdo kooxdeedii marka waxa ku hagaagtay biyeero yaala la qaybsaday kooxdeedii marka waxa ku hagaagtay 3 caago biyo kooxda marka inta tirahan maxay kooban 3 wiil weeyaan caagad maxay qaadaa 8 bayt tii kalena 8 bayt ba qaadaa waa 16 soo ma tii kale 8 waa dhowr iyo 20 bayt qalqal uga dhigaan ku dhawday marka inaan ciidanka gaadhin waad garanay waan yar rondeeyo yar baan ciidanka saa u dhaaf shaahi la kariyay bigaaska waa bigaas yar yar runtii la yar oo sankara oo iga sii go'aani kuwi koogta marka ciidanka u qaybiyo qarqaray kursi u gaadho aniga laba wiil oo kale oo naga go'ay te kulli qar ima qorshaysan inaan cabo isagoo naftar kale oo mane ima ayna qorshaysan aniga uma ana joojin ciidankii baa dhinac wadana naga soo baxay 12 maalinkii baan dhul buurle yaan u socday habeenkii maghribkii daman meel durugsan biyana loogu sheegay raggan waa rag wada dhaawac inta badan inta ka maamulka waa nin soo jabay oo dhowr jeer soo dhacay soo rabay ragga maamulka ah yaa wax dhaqaashiye laga waay nin Axmed ahli markaa kama boosta xaashna buru guud qeybadii inuu la socdo ruux biyihii doona la waay ninban ninku ka adka rag aan u maleeyay yaan ma dhow 28 wiil xabad ay koomana waan qaatay aniguna 3 ayaan qaato 3 dana soo qaadi karaan labadan booyo xabad iga yaalaano loo saas ii gargariirayaan laakiin taanu ma dhicin rag baa dhacay oo kooma galay meesh biyaha garba biyo oo meelaha noo qabanaysa yaantay kolka wiilash 20 kayla socda ugu sii daayay mid walba markuu maraha 7 iyo 8 koob cabay yaan bahal u la qaatay way dhamayaan way daadanayaan inaa ka celiyaan dhacay koobkoona nacbaan ana wiilka wax biyo amaana dhadhamin oo hadaan cabayna dhacaan ka yaabaya intii caagadayn wadana min 3 caagan wadana markan garbadii ka dhaamin garbadii yaray yaanaygan dhowr caago naga go'day wiilal ku hadhay yaan ku reebay 3 koob biyaan cabay cimriga waagan 3 beedo biyo cabay 3 koob biyaan cabay biyaha ma cabaysaa afka markaad ka qaado jidinku siin ka gumb dhimbil daba mad mooysa sabrad biyo saan loogu shubay mad mooysa jaf 3 koob ka badan ma cabin marka waan iska celiyay ashada marka aniga oo ugu badnaa aan 3 koob biyo cabo ee jidinku aan loo dib u laami weydana maalinkaas baa waka ooniya gaajo labada ay gama badnayn hadii aynu oonkii iyo haraadkii iyo gaajadii iyo balanbalkii halka kaga tagno sax qisooyinkii dagaalka hadaynu u nimaadno bal hal iyo laba maalmihii kugu xanuunka badnaa ama istiraahdo wallahi maanta bixi meysida naftaada gunaanad hadii ay jirto horta 3 maalmood 4 maalmood saan ku sheegay adigu adaa kala qaadan doona midka u dareeyay saan ku yiriba 4 maalmood baan horta marxaladeedii aan ku jira dagaalka 4 maalmood baa igu dareeyay laba iyagu waan isgunaanadeeyo dukumiintiga aan haystay intaan qaaday oo god u qoday baan ku aasay wixii rasaasi wixii banaystay aan dusha soo marsay wixii baan galay oo 2 maalmood baa taa waan faahfaahin doonaa oo aniga gaar ahaan igu koobnay labadaas waa maalmaan isgunaanaday maalin saddexaad baa igu xigtaan oo wasaasa saaran oo 12 maalin la soo waday 5tii galabnimo markay ahayd baan loo kala wareegtay waxaan damcay marka nimankana deena askar karanayna waan garanayaa anigina waran laanahay waxaan damcay intaan dhaxas ku qabto inaan bogbog u jeedsado si aanon eeyga xabada inay igu dhicin haddana shaydaanka iska naaray waxaan siray nimankii asaarta silbi cunaysan adoo boodada kaaga taalo jiifintay ku iman lahaayeen si uu qori ku qaado ku yaro aroorta unugtayda ah oo aad u jeclaa aroortaana markaan dagaal ku jiray dagaalkii raggii baxnaan samay ah oo jamcaale leeyahay khayr Allah si uu nool yahay ragana aad u xisaabtama oo qoriyay wada qori raashan lahayn aroorti aan dhowr baan tuuray xabad aan aad badan uga ridin yaan ku jamcaale qorigeysi
إنه جيسي يقول لبنا ما جرين يقول لبنا تاني رب ويقول صار نقطة ويحمل قريجة يقول شرتها حبضية كم السين هي أنت هنور هاي هذا سقط ديك أنا فريسيب أنا جن أنتوا قعدت قبتين يرتايج حد يروح حاجين وخنا وخرع يساوي جدي إسنا يربي أكفرست وأنا السياسيين وحرساس زي أنا هلبنا وهيستان سؤال الكل كيروان كل صانع هل خلنا تيجي فرست دلنا كستيجا مرن رجع صاحب بدأ هشوير بواساسها ينقود نالي مدوال بحيسة أوكر ويسوي قرب كواه يقول والله إنك عليه أول باش نشرت تريه كواه صاحب كسنة ضادك خير الله سيادة وشي يا بحي ولا بحي صدقني ويلا كره مد واساسها لو طلع وعتر أنا وإيجن لبنا ولا قبته أنا جينا حد كيره حاجينك ينقو بحي ما أنا كهرت آخران قرشست ما يصدقين لكن ساسا كوبت بالي ما أنا كلو أنا أفر أنا ومن لو هلي ومن نجا عرّي صدق أنا وأنا أسوي البدر وأنا مدوري بأدوسي أمي سنة مدوس كيراي سنة أدق بوت على مدور بالله ولدي لكن أنا أسوق متننا اللي يقول أقدري الشغل أنا إذا واسعي أنت معنا سياسي ما نقول ربي جو ما أنت وير لما توان أركاي إله خاتم الخير وختم وكل أنا عقابت مشتري آخرنا يعني عقاب لكم ما أنا كاس أنا رحت آخر ولي ستوس اسمه قرشي هدينا لهم كسر ولا معلومة كلا خيارات خيارك يجوه الرئيسي هالكن دقمة عقار كذا يعني دجال هذا كو قالون عندنا سنين شركوا الرهي نمنا صاحبنا ماشى الأولى عشان تسمعنا حبط باللعبتي صدق حس إحنا مركح يقول من هذا فربنا جبتيه كصوب حبيبي حكيم وأورا الوطن سوق جاري إذا كي لبوا كلا بحي قايبي كذا نقول دجال قرح نيك دقيسي هنا بحس كيس هذا حبط نيك فلي هنا يا ما تسكن نورمال كهنا لا بحي عدة هذا يراعى يسوون السراكيش مركا إن هذا حوك القرشين بالبرنا أفرت ويلا لا بحيان برنا دجال خاصة قلان رجع مركا أنا دجال كجرمة دي بيقصون ويسوون الأمر يعني كم ذا دفاع مركا صاوي حرنا المدة دجالنا يا وحنا كل أرتي من أنا صاحبه وداير حرب اللورين شرو شهيد إن صدق إنه نقول عارف عن كل أرتي سو مديك تاجيه بعرف ساسو يسوي عسى وكشكاش حتى نصدق الدلوقتي داير حرب اللي ما كان صوصة وري حيوي دين ما كل من صاحبين ساعة أنت سوير خول على لابتي مركز داير كم بدك تتنوع جديد وكم أهني سوير وكذا ضفريان وحنا وكم هنا سكير على لابتها يا لاركا إن سوير كيسا صلاة ذلك لو جيستي ونلقى تبيع تأسى أو صفر سنة يقول السنة فرقهم مال دركسن كصادعي يا هالك لو أنتوا قاعد عيب سيادة سيفوتشي ساس إيكل وريدسي وأنا دعي مركز وقوم أنتوا عدوين اسكم مري هالك سكر كتورانك مري يروح أحد يقول حنين يعني اسكفر وأنا سحري بالك أنا كان تقولين هكانك وأنا سحري أنت أنا سحري أم بقى خيرا بقى بالك يجوز قاعد كان لقول يجيب جوز قاعد أنا سحري واسقي شنيا لمن صاحبنا حسن عبد السميد اللي حسن يركم مع ديرة نيجان كوم مع دبي يهال كاس وخلاص يرلوك دم بيسيتشوا يوصل له سيقول دولار أنت نولا أنا كاتين والله يقد على عالك تونكو يرتي كل كان يلا أيق كذيك أنت اللي مركي له دي بقولك لا يجارسي السجن هو يقص النقطة وحيقول نحن بدنا المركة مركو السجن يقص النقطة صاحب كأه إن صدق بتوع مثلا جيس الله يعني كأنا مركو قاعد يقص النقطة نين خلاص نرك عسى جيل لورين شرني أطلع ما بدناها وحرنتي حق على جسوا بدون الحلال يا صاحب بس قاعد نقني يا أركمال دراية سوق أنا أو تونك لا يقول ما حيقول سيا شيش كلا يقول السوق اللي ثاني السوق هذي يقول رويله يسكت دراي حبدا اللي وين تاك كدعي يانا ايغay halka ka soo baxay wiilkii u dhacay ana u sheegay ku rebel baa dhacay ilka xasaa dhacay soo qaada wiilal kala kulay wala soo qaxay 3 saac bay qoladii ugu daba dagaalamay difaaciisa ciidan adagna waa noohay 6 saac xabad markay socotay bay naga istaagtay oo anaguna kala baxnay wiilkii maalinkii waa la maqribkii markay tahay meel yar oo quraan digna shan la karsanayo ya wiilku halka yaa nafax سو مديران مقلي منفح أصلاً هو إلك حسب منفح ويجا عمسان يو أنت وصاصيق كو قاعدين أنا أوصل على إنهي يا نرك بانو جمرو أور بره اللي جا سوق قاضي أور تنا اللي جا سدر هذانا من معلن تببره هي وأنا أدي يا صاحبان هيرل ورنشري
naxariistiisana allah ka waraabiya iyo awr iga soo qaaday reer nin cumar shafaa la odhan jiray iyo qolo dhowr iyo toddobiyo sideeda laygu daray habeenkii o dhan martii laygu waday shantii markay adugu tahay toddobadii habeennimo dambe iyo wax iyo meel yar seexdeen ilaa anu ma seexanayo nin aad u dhiig baxay baan ahay markay shantii ahayd baan toosi yaan u suldhabayaaliyay kii ag fadhiyaan taabtay waa lay qaaday awrkii markii eegana 5 saac laygu waday shantii barqnimo tahay unbaa wax leeyahay muujiseen aanu deega xilligan soo gaadho ilaahay ugu tala galay umur ratiga la dhaqaaqo waay ratiga la orday ilaa reerka la igu dajinayeen axmaara degan waxaa lagu yiri kantan waa saas ku soo qaadnay maadaama ratigu cabaadayo fadhiisanaya uu daalay malahe ratigana ha sii qaada hiri afarteenna shanteena wiila inuu soo qaadno naftura wasaasa xilliga la inta wasaalaha saala sameeyay ya waxaana waa karan dhulku waa barwaaqo shan caagooda caana iyo dawo fara badan oo soo qaadnay awrka ay saaran wiilkii dhulku dhir buraa karan baa barwaaqa isagoo socdan bay qoladii axmaarada inta reerkii ka soo kacday xagga naga u soo kacday oo daanayna soo wareersan nagu horimanaysa maadaama galbeedkan dagaal ku galay saas oo qorbax ka soo baxday baa oo boora la soo xusho oo baa ay hor istaagtay wiilkii degta kale ka arkeen oo jeertu soo dhaadhacay oo baa ayar dhab jinta siiyay ayaro kamaan dooso inta ciyalkii baadhama yahay oo ila tiriyeen aad wax u soo tababartay kamaan dooso weeyaan active way qabteen adigu dhab qori bay ka qaadeen awrku xinjirti ka daayay dhan natus ina mariyo buu ku halkaas aan iyaga bartaas u labooy isagoo noocaas oo soo jeeyay inuu kelida kaga soo baxay leeyahay ilaahay difaac ka garan labana leeyahay aniga daran oo aan ku socon karin saddexna waxa weeyaan aniga ma wasaasi dib ila guurtay qolo kale oo soo dhaafno nin dakhraguul oo jiro malqa ragii ku shiiday oo nin adaga oo tariiq waxa ka yahay xasan cusmaan kan ku soo tariiq waxa ay la joogan oo qorsan ay qori beekay wata yaa igu horiyay kuiba difaaciga dul xidhay rijimitii axmaarada dhinac uu naga maray wiilkii markuu galaasho geeyay ninkii awrkii horta halkii ku qasheen degmada galaasho waaga cidlahay ee ku qasheen isagina markii dambe inta qaban kari waayeen oo gaariga saar kari waayeen oo danin kamaan doosa oo ahay afar nin axmaara oo qorgooy iyo markii dambe nin kamaan doosa gacanta kaga dhuftay baskoorad gacantana markay jabtay ay qabteen naftuuri way saareen ma eegana sarmeerla meel leeyahay soo shiriyeen dadkii waxay ku dhaheen waxa weeyaan sheeg wixii dad heemashan afka gacanta iga galiyay buu oo raanka soo saaran iska tuuray iska tuurtaan iska tuuray soo 10 daqiiqo in dhan ka orday iyo qolo kale meena baadhayd oo wadada hordiis yaa dishay qasada igu macna adkeyd dhacdadii igu horeysay labada sagaalkii baa dhacdadii igu horeysay taas ahayd sababtay tahay saaxiibkaygii macalinka ahaa ee dad ilaahay ugu jeclaa ee tababaray macalinka ay ahaa aad iyo aadna saaxiib u ahayn geesinimadiisii kalsoonidiisii shiishkiisana aan ku kalsoonaa nasiib darro haddana sida jaaniska yar lagu qabtay haddana ka doorbiday inay aniga waxana intuu dilo oo keeno inuu isagu dhinta ka doorbiday taasina murugo aad iigu weyn oo seexan waayay ilaa intaan ka bogsanayay inay hurdadu igu dhantay igu adkaatay ayay iyaduna ahayd marka dhacdadii igu adkayd marka ay xagday saaxiibka xusaantiisa noqoto iyo hadday nasiibka de naftaydu si ku badbaado ay noqoto dhacdadii igu horeysay taas ah marka laga yimaado dagaalka foolka ama naftooriyaasha ay xabadu leen jirtay ma jira waxyaabo kale ama qaabab kale oo ay naftoodu ay sababsan jirtay waxaa jiran iyo laba nin oo aad iyo aad qaali ah way badnaayeen laakiin labada nin hadda igu siyaalan xusuusto laba wiil oo si guudna wada dhaarsanaa si gaar ahaan isu dhaarsay oo midna gaboobo la oran jiray Abdulfataax Gaboobo naxariistan Allah ka waraabiyo midna la oran jiray guuleed axsan kaamil guuleed kaamil shaacali la oran jiray oo maalinkii dindimca dagaalkii uu ka dhacay labadii nin ee dhashika rag ridayay laayay inta ciidan ka dhaxboodeen labada nin ya xilliyada kamid aan ku galay xilliga lama socon qolo ciidanka iyaga kamid ah dagaal ku gashay girgirka jarreed qolo kale military ku dagaal meel ka dhacana de waxa gurmadiya soo bixi jiray qolo kale military oo gurmad ah oo cadawga asniinaya ka soo daba tagtay waana iska tiriyaan laba kooxood bay ahaayeen dirjimitiina ka soo daba tageen toga faafanada socda inay talaabaan bay dameen toga faafaneed meel marood reeb leeyahay waxa xilliga hore doox ahaan jirtay biyuhu labada dagood bay hayeen halka uu ka balaanay marka laga talaabi karaa laakiin meel goodi waraari uu ka soo go'ay yaa jirtay ku yar oo deegaanka ah oo toga yaqaanay
yaa la yidhi halka waraarka ciidanka intaad ka leexisa adigu indho hore noqo isagoo indho hore ah wiilka hor socda iyo ciidankii yar kala go'ay labada wiil gacanta iyo isa isu haysteen labada wiil qoladan ay ku jiraan baa ka yar kab go'ay roobka macnaha daadkii biyuuna halkaas ciidan ku talaabay gundiska yaa ka yar kab go'ay ciidanka saa u leexinta waraarka afka gooyay saa u leexday yeesna halkan saa igu uga toobeeyo ciidanka halka kaga dhax ilaa kabtan ay ka toobeeyay isleeyinba waa goodi waraarka ay oo 8 baa mala halkan ay tahay 5 wiil baa ku daadatay marka halkii taabatay 5 wiil naxariista jannada ka waraabiyo labada wiil in ku sheegayo ku shiidi doonaba iyo waxa weeyaan biyaha laftooda la washiiday iyo wiil kharax biloorin jiro dib ka shiiday Abdullah Madow wiil loorin jiro hadda jooga wiilka shanaad baa ay jaray adu 5 wiil baa ahay 3 wiil mid dabaash yar yaqaan oo dabaashay midna geed buu fuulay geed gosol abaarkiisa intuu qabsaday yoo fuulay kolkii dambe wiil Axmed Gurgurle hadda joogan u diray kiiba ka soo dejiyo la dabaashay 5tii qorna dhulka taabtay labadii wiil kale isma ay sii deynba Cabdi Fataax Gawaaha waxa ugu maraa qoriga yaa dhabarka ugu jira birtana way dejisay ruux kan yara kale soo guulada qoriga u hayay laakiin inuu saaxiibkiisii daahiyo inuu la naf waayo ka doorbiday ma uu sii deeyay waxa jirtay salkan bay labadii wiil taabsiisay saacaduna ka dhamaatay labadii wiil sidii bay ku shiideen qoriyii anagu xilligii dambe tagu ingaga deer dhaafkii ahay dambe uma neys ka soo dhaxsaar 5tii qori labadii wiil Allah aclam hal wiil baan raantiisa la arkay ilaa yaalanka meel ay lafooda xataa lama helin hal wiil baa timiisa la arkay marka way jirtay waxba soo jiray wiil kale cali soo baxay la oran jiray oo isna macallin tababara kamaan doosaha isagoo ballan buuxinaya dharkiinley oo qaybta dufaanaha baa xarig degta kale wiilal jooga u tuuro ay qabtaan buu xarig aan ku soo talaabay xarigiin baa u go'ay saas isaguna ku yukushi marka way jiraan marxalad noocaas ama xagga daadku sababi jiray anu ma xusuusto nafturo waxa naga cunay abu libaax naga cunay ma xusuusto dhul socodka isaga heshiis ma iska ah saaxiibadaadii aad ugu jeclayd xilliga dagaalka inay ka barbar dagaalamaan aad baan horta u xustaayo ururka marka u sii fiirsato dhalinyarta joogtay 95% geesiyaal baa ma qoslayaal laakiin ragga saaxiibadeeda khaaska in ay gaad u xusuusto in geesinimadooda raggan su'aalaha ka weydiiyay markay xabadda ku jiro tolo ma naxdaan oo wadniin inuu naxdin ma gashaa waxa ka mid ahaa ragga nool ee hadda maanta nool iyo raggii geeri macnaha shiiday inta markii la yiraahdo ma tirin karo koow loo mooran karo laakiin faarad wala loo oran jiray dakhra gulani loo oran jiray dal jirin loo oran jiray xuseen caawin loo oran jiray waa ragga akhri jiray abdi dheekiyo loo oran jiray Abdullah Galaashin loo oran jiray xaashin abuur oo kaleet Allahu musta'an min saaxiib Maxamed Haylaaq wiil loo oran jiray waxa weeyaan saneefar la ahaan jiray Sheekh Nuur loo oran jiray maalinka aan dhaawacmay saaxiibka isna la diray ma tirin kara laakiin ragga aan sii xusuustay sida gaarka ay ugu sii dhahan marxaladaha adagan aan soo wada maray raggaas ka mid ah ragga nool markaan idhaahdana Xasan Cabdi iyo Galiilaaw jooga Maxamed Ilka Xasan la yiraahdo maalin xabad boodada ka jabisay aan saa u taabtay oo wallahi xabadda Maxamed Ilka Xasan dhiidka uga soo daadisay soo boodada ka jaban oo xabadda dhacayso yaa isagoo labaan arkay inuu odhan ma baan aaminsanayn yaan wajiga saa u taabtay markaas soo dhiid burburuna ka soo daatay yaan arkay saan wallahi Maxamed Ilka Xasan xabadda sidan u gashay yaa inaan mid helan ahayn aadkeeda ma aan meena jabin si kale oo jiideen iyo sayid iyo mooyaane meena jabin marka ragga sida gaarka ay ugu adkaa inuu naf iyo ruux ahayn dagaalada adag ayna wada qabsadeen anuu iskiil badaray ragga aan ka soo qaatay hadda maanta ifka jooga raggaas ka mid ah ragga akhri jireen intaan ku taabtay ka mid ah